عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa saddex qodob inaan ka hadlo waa anigoo Cabdi Xoosh Ashkira. qodobka koobaad bishii Luulyo kowdeedii ayaa waxaan nacasumay oo noo yeeray oo dibay noogu yeeray anagoo saddex nina Universal. barnaamijka uu noogu yeeray waxay ahayd inaan ka hadalo 50 sano ka hor wixii dalka Soomaaliya iyo maanta inta ka dhaxaysa wixii u hagaagay iyo wixii ka halaabayba. waxa dhacay saddexdanadii nin oo meesha isugu yimid labadii nin oo nin wax igu bilaabeen attack maagis anigu dawladii ma aan ahayn waxaan ahaa nin ganacsada sidii dawladii aan ahay oo kale ayay aniga arintaydii ay u qaadeen attackgaas ay ugu bilaabeen de shakhsi bini'aadmi aan ahay dawladiina kamid ma aan ahayn si khalad hadii wax iiga dhaceen si khalad wax iiga dhaceen ama hadalkaygii dad badan baa dhibsaday ama ay dib u arkay. waxaan doonayaa inaan qodobka koobaad ka raali geliyo gabar iyo wiil iyo oday ama ha loo sheego ama ha maqleen ama ha daawadeene wixii meesha ka yeeray waxaan ula jeeday ummadda Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dadka waliba reer waqooyiga la yiraahdo Soomaaliland la yiraahdo gabdhihiisa oo xidid aan nahay oo qaraabo nahay oo ehel aan nahay oo aan xumaanba waligeed banana dhaxmarin ayaan hayna inaan dhaxmadho ayaan waxaan doonayaa horta raali gelin weyn iyo mataqaanaa xaalba inaan ka siiyo arintaas hadii ay u dhibsadeen midaan ula jeedayna ma ahayn inaan ama dad ku dhibaateeyo ama dad gabdhahaas ku dhibaateeyo waa mid shakhsi caygii nimanka ka soo baxaya afkooda ama maagistoodii sidaan anigu dawladii ahay oo kale ummaduna aan ka dhashayna maxaafidna way lahayd niman diidana way lahaayeen marka qole aan ku jiray ilaahay baa shuqul ku leh ama waa la ogaaba markaas si dawladii ama Maxamed Siyaad baan ahay ama qoladii la talinaysay aan ahay ayay ila hadleen ama hadalka u dhigeen taasa horta khaladka ay gelisay waxa khaladka ay geliyay dhacdooyin hore aan ogaa iyo wax hore dhacay na khaladka waa ay gelisay waxaan se ku arintaas koobaad ku soo xiraya gabdhaha odayaasha kuwii maqlay iyo kuwaan maqlin kuwii meesha laftooda igala soo xiriiray intaba inay raali iga ahaadaan. qodobka labaad waxa weeye Universal markii aan gartay in qalad iga dhacay markaan gartay in ay waajib tahay inaan meeshii laftirkeedii iyo Universal qaladkii iga dhacay aan dadka ka raali geliyo waxaan weydiistay Universal inaan idaacadii dib uga hadlo qarashkana anigu la baxo si aan dadkii uga raali geliyo. Universal waxa weeye meel ku tala gashay dadka 3-4 inay isaga hor keento inay buktooyinkii jiray iyo dhibaatadii jirtay dib u soo noolayso si dadku ay dhibaato la kulmaan dadku ay cuqdad ay kala qabaan dib loo soo celiyo waa diideen inay iga qabtaan raali gelintaas ayagoo qarashkooda qaadanaya. waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digayaa Universal halaaga Soomaaliya ka jira ayay kamid tahay iska ilaaliya proofkeedina waxa ah waad ogeydeen ninkii Prime Ministerka oo Ingiriisku hadda laga raayay markuu gafka galay oo na islaan uu idaacadda gafkaga galay uu gurigeeda ugu tagayay isla markiiba isla idaacadii ayuu ku noqday oo raali gelin ka bixiyay. waajibku wuxuu ahaa idaacadii gafka aan ku galay inaan raali gelinta ka bixiyo balse waxaa dhacday nimankii niman dantoodii helay oo wanjaraad iyo mataqaanaa xumaan inay ummadda ka dhex helaan doonayay ahaayeen. marka halkaas waxaan uga baxayaa Universal iyo sida dadka Soomaaliyeed ay u khiyaanayso iyo say isaga horkeenayso. qodobka saddexaad maanka anaa buu yiri Cabdulqaadir Xaaji oo aan ku ogeyn inuu joogo London oo 22 sano ama 20 sano ahaa ninkii Maxamed Siyaad ag fadhiyay ee talooyinka xusiinayay ee xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed la oran jiray ee hanti wadaaga ahaa ee shuuciga ahaa gudoomiyaha u ahaa nimankii dalka qabsaday ee 22kii dalka golaha sare la oran jiray ninkii kamidka ahaa ninka Soomaali u tirinayso Cabdulqaadir ama uu og yahay bay la tahay ama ha jooga ama yuusa joogina wuu iska warqabaa annaguna waanu ognahay caynaasha loo tirinayaa waxa loo tirinayaa wadaadadii lagu dilay Siigaale waxa loo tirinayaa ninkii la oran jiray Gabayre waxa loo tirinayaa ninkii la oran jiray Dheel
سؤالات كاس إن وحلا ويدي ضد كاس نك إلا مسؤول كأها وحسب جاسنا مدحضة كأها محمد سياد نج أنت سميدك تهاها ما عن ضد كلا ومساكين يوحسين لغة قصده بل سأ أنا جا عبد القادر وأنا عبد الحوش بان هاي أنا أدو ويسجنا كوي لو تنكي واحد قبنا سنة وانوجا أدونا واحد قبنا يوانوجا أنا وجنا صدانها أدونا حسبي شوعها أياد مدحك هاي ومدى الصوماليين وما أنت بربركاس نينك حسبي شوعها أنت وذاك مدحك هاي بعدين بربركا وحي أدخل هاي تذكير الدليل وحي أدخل هاي السياسة دي الخلدي محمد سيادتك خلدي دباتيي خلدك الجريي وحي أدخل هاي هرجيسة يا بربركادي يا واحد لقى شيء أنا أمر هرجيسة شيكتان أمر وقوي شيكتان وحي أدخل هاي نينك أنت نوعي يري بعد هاي السيد هرجيسة لو بربرية كاره دتك إنك عصتا عن صوت سه نينك كادي دايمانها وكويري مقال ماذا حدين لبعض أنا جاين ميس كاره السيد وش الشبيه عن صوت سه عندي كلام جايني سجى نينك تكون دعويني سيبانها عبد القادر ما أنت وانو قاعدين لندن أتشوكتو أنا أيا لوير كو قبانية أنا خرج كي سبحينية أنا أيا عدينية وايو تمريحان قول الدولة ده ترى هذا إيو واحد وقته رالك أنا وورها قرد ديدنا وورها لكن إلهي وينا بقى واحد كدي دنا يا واحد كأجرا بلسه أنا أيا هذا وينو بلعبته أنا قبيل ما أدري سمر كان ماشي كان لي قبيل متقن وماشي قينين واحد كسوق لي وحوي وحد دنبي هاي تكون تشتو صوماليا كسوق شيء أيا تشاني سلكا كرهت سنيس مراد بذكر سنس أنا الصومالي أذكر لكن كوا كانوا حدد بنا حجارة الناس الصومالي ما ولا الناس صاحب ما ولا الناس يقرر هذا أنا جاله أديك الشقة قوت على أديك معهن وحي خلصوا أنا يقرر داعي إنه بيرسل شقة قوت على معهن أنا جاله قبلها هو يوين كورارها أنا حدده أنا جورارها أنا صاحبها أنا أنت عن كله أدوك ملي الصومالي لماذا يقول شرطنا أديك كوكو شرطة أديك كوكو شرطه بل قبيلك ورن بل هنيك لورين شري كورن نكى لديه شري نكى وادة هذا مساجد كتشوجي وعطيني حسب جه أنت وذاك كعنك الصوماليات شو إني ما تبي كوري ماذا إني ما كانت كل شيء كورن وحوي وأن سجنا الصوماليين إن مال كلا تأدى وما هنا أديك إن له سؤال ويوحي الصومالي كدعي أنا جانا مرخاتي وأنا كنا وإنه بلا بطي وحين إلتها الصومالي إن كفر حدون تمر كإنتان لوير كوقبته وحي أدق الشيء الصومالي دي أوجينا ويموجته والو موجا لكن أنا عاود براروتشينا يا صومالي عندي خلط كالشيء والصومالي صاروا كالشينا وحن شاء الله إن يصير برنامج وصوب حدونته أهلا وسهلا صومالي ده أنا خالها يقعد